waxaan ciwaanka aad aragteen waa muddada harsan iyo xaggee loo socdaa dad badana ay weydiiyey ciwaanka muxuu yahay isagaa rabaa inaan ka bilaabo marka maxaa keenay sababta ciwaanka aan u xulanay maxay tahay ciwaanka waxaan u xulanay 2 sano joognaa dawladda federaalka ah markii maaragtay mas'uuliyadda loo igmaday 2 sano iyo hadda ay ku dhowdahay maalintii madaxweynaha la doortay 2 sano kadib waxaan isugu nimid xafladii caleemasaarka madaxweynaha Puntland ee la doortay waxaa la qabtay saa ogtihiin shirar hoose iyo kuwo koraba waxaa soo baxday in la yiraahdo hal is cafiyo 2 sano kadib waxaa soo baxday in la yiraahdo Puntland gogol ha fidiso 2 sano kadib oo lagu heshiisiinayo dawladda iyo dawladaha xubnaha ka ah madaxdooda iyo dadka kale oo siyaasiyiinta ah oo stakeholders ka yiraahdo in la heshiisiyo 2 sano kadib inay Puntland gogol dhigto macnaheedu waxa waaye 2 sano oo dhan hawshii loogu talagalay lama qabanin saasa ku qarsan meesha hadda la rabaa inta la heshiiyo la isla jaan qaado 2 sano soo socota saysan nooga lumin aan hawshii qabsanaan u baahanahay marka taasa keentay inaan isweydiino xagee loo socdaa marka waxaan rabnaa marka match la isku yimaado haduu Ilaahay yiraahdo bisha Mars Puntland gogosha dhigto oo macnaheedu tusinaysa miisaanka siyaasadeed ay leedahay Puntland inay maanta ayada gogashii Soomaaliyeed lagu heshiisiinay ay dhigayso waxaan rabnaa in 2 sano hartay ee naga khasaarin dadkeena xisbiyada waxaan ku wada hadalnay iyo hogaamiyaasha siyaasadeed iyo xataa maamul goboleedyada wixii dhacay inta xagga la iska dhigo fatrada dhiman ama xilliga dhiman ee 2 sano waxa laga rabo dawladda inay si dhab u qabato marka taasa xageen u soconnaa ay ka imaanaysaa oday dad badan marka hoggaanka siyaasadda iyo dadka wax hoggaamiyaba sidooda nooc rabaan noqdaan waxa la yiraahdo visionka ama aragtida ama fogaan araga hadduu qofka ka lumo wuxuu ku mashquulaa wax walba hawl cusub inuu bilaabo oo yiraahdo midii ay dadka rabeen waatan ayaan markoo wadane uu ka noqonayaa wuxuu leeyahay wartantii la rabay maaha maalmo kale haddana wuxuu galayaa mid kale maalmo kale haddana mid kale galayaa maalmo kale haddana mid kale galayaa qofka marka waxa ku dhaco confusion marka waxa la yiri haddii aadan aqoonin meesha u socoto wado walba waa mari kartaa wado walba waa geysaa meesha u socoto haddaad ba aqoonin meesha u socoto haddaad inaad kaalkacay u socoto iyo inaad boosaaso u socoto aysan ku kala xadidnayn wadada rabtaad mari kartaa tan aada xataa la saanad wad qaadi kartaa dhib ma laha marka directionka iyo aragtida waa muhiim oday waxa la yiri baadiyaha beer falanaya yaa ninku soo baxay wuxuu yiri adeer ina tilmaamtaan rabaa yaanbadiyo inta dhigo soo istaago wuxuu yiri xageed u socotaa maandhow markaasuu yiri adaan ka rabaa ina tilmaamto markaasuu yiri waqooyi iyo bari iyo koonfur kee u socotaa uu yiri ala dadka reer baadiyaha beer jihooyinka waxa lagu kala tilmaamsadaa moogtahay markaasuu yiri midaan u socdo ma qaano beertiisiyo fallinkiyo ku noqday markaasuu adeer ma tilmaamtid maandhow wuxuu yahay tilmaam maratid in lagu wada rabtaa uu yiri anigana waqti ku ma hayo marka aragtida iyo visionka iyo meesha loo socdo waa muhiim dhowr jeer aad iga maqasheen war Soomaali hadaan nahay waxaan ku heshiinaa jiro waxa aan ku heshiinay waa nidaamka federaalka oo gudoomiyaha iga horeeyay sheegay inay Puntland dadka ku baraaray oo ku miro dhalay oo ku caana maale ay kamid tahay Soomaalida ku heshiisay federaalka waxaan ku heshiinay nidaam kali talisa maadaama dalka oo ka tali jiro dhibaato iyo dagaal sokeeye la galay in nidaamka siyaasiga iyo dastuurka oo noqdo mid dimuqraadiyana waa ku heshiinay oo dadku ay ra'yigooda iyo taladooda xor u ahaadaan waa mid labaad oo ku heshiinay mid saddexaad oo ku heshiinay waxay ahayd awoodda in la qaybiyo aysan hal gacan ku jirin oo dadku alle waa deegaamo iyo qabaa'il
in 4.5ka xal xaq ma hayna la yiri markii la sameeyay waa xal saddexdaas maxaa la rabay marka dawlad kasta oo timaada ama hoggaan kasta oo yimaada saddexdaas la rabaa inuu ku sameeyo reform ama islaax ama dib u habeyn ku sameeyo federaalka xagee looga sameeyay federaalka waxa looga sameeyay waa la dejinayaa maamulka deegaanada caasimad dawlad goboleedyada awoodda inay taalo lama rabo waa inay deegaanka kiisa ugu horeysa ay gaartaa devolutionka ama maamul furfuridda waa noocaas dawladda marka maxaa laga rabaa sharcigii federaalka inay dejiso dastuurkii waa yaalaa heshiisaa lagu yahay nidaamka federaalka laakiin sharcigii federaalka la rabaa in la sameeyo waxaa la yiraahdaa administrative federal systemka maamulkiisa in la sameeyo oo deegaanada loo dejiyo awoodda oo aysan ku aruursanaanin Garawe ama Dhuusamareeb ama Kismaayo ama Jowhar ama Baydhabo aysan ku aruursanaan federaalka in la dadejiyo la rabaa maxaa laga rabaa nidaamka 4.5ka awood qaybsiga in laga dhaqaaqo oo hanaanka xisbiyada loo dhaqaaqa la rabaa reformka halkaas oo jira oo dadku 175 dhalinyarada ah dalkan ee jaamacadaha ka wada baxay ee aqoonta leh ee raba inay aragti iyo mabda wax ku taageeraan inay nidaamka xisbiga la hormariyo oo nidaamka xisbiga la sameeyo oo 4.5ka looga talaabo hanaan xisbiya la rabaa democratization-ka ama nidaamka dimuqraadiga ee lagu heshiiyay in la dhameystiro la rabaa hay'adaha dimuqraadiga oo nidaamka dimuqraadiga uu ku dhisan yahay garsoorkii inuu madax banaanaado baarlamaankii inay laanta fulinta iyo laanta maaragtay sharci dejinta ay kala madax banaan yihiin niman dhalinyaro ah oo baarlamaanka ku jira maalin dhan waxaan ka dhaadhici waayay dawladda muxuu baarlamaanka u khilaafay leeyahay baarlamaankeena ku jira laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta inay laba kala yihiin dadan ka doodnaani baarlamaanka ku jiro ku been abuurnaay marka in laamaha ay kala baxsan yihiin garsoorka oo madax banaan yahay ya warbaahintu ay madax banaan tahay bulshada rayidka ay cod leeyihiin nidaamka dimuqraadiga hanaankaas lagu dejiyo yaa la rabaa dawlad kasta laga rabaa saddexa marka lagu qariyaa saddexdii lagu heshiiyay saddex lagu qariyaa rabaa cawada in kaga digo koow midda lagu qariyo federaalka markii la rabo in la dacniyo oo la diido Soomaaliya dawlad xoog leh u baahan tahay lagu leeyahay oo dawladda xoog galasay u taalaa waa mid dawladda dhexe gacanteeda ku aruursan taas la rabaa lagu leeyahay dawladda xoog gala fasir hadaa dhahdo ma mid sharciga sareeya ma nin qadaaga ama garsoorka madax banaan yahay ma mid warbaahinta xorta haya ma mid nidaamka federaalka awoodda baahsan tahay oo daadegsan tahay ana dhowr jeer aan sheegay buuliburtaan ku dhashay markaan secondary-ga dhameeyay shahaadada waxaan u doontay Muqdisho baasaboorka waxaa loo doonanayaa Muqdisho wax allaale iyo wixii service dawladeed oo dhan waxaan u doonanaynaa Muqdisho xataa telefishinka qaranka Muqdisho ku ekaa markaan fasaxa baxnaan dhigi jirnay telefishinka soo fiirsaday wax walba waxay center u ahaayeen magaalada Muqdisho awoodda dhan Muqdisho ku aroorsan marka nidaamka haddaad maqasho marka dawlad xoog ah la rabaa macnaheedu waxa waaye federaalka la diidan yahay waxa la rabaa in awoodda hal meel lagu haysto waa mid lagu qariyo taas federaalka haddaad maqasho wadaniyad dimuqraadiyada la dagaalama wadaniyad haddaad maqasho waa nidaam dimuqraadiyada lagu dagaalayo oo maxay tahay wadaniyada waxa lagu leeyahay madaxda qaranka waxa ka sheegin qaradaadkooda ha tilmaamin haddii kale wadani ma tiid kaligii wadaniya la noqonaa marka maxaan hayna shabaabkii ahaa kaligii islaam kaligii wadaniya soo baxay marka marka waxa la diidaa hanaanka dimuqraadiga in la diidaa la rabaa oo naqdiga iyo sida ugaaska sheegay si fiican u dhigay iyo nidaamka maaragtay xorriyadda ra'yiga iyo aragtida waxaas oo dhan hadda maaragtay dawladii adduunka ugu weyneed America nidaamka dimuqraadiga dhibaato haysata nin Trump ila u soo baxay waa saan nationalist ah ku leeyahay qof allaali qofkii ka soo horjeedaan wuxuu leeyahay kaas muu jeedin ha America inay great noqoto ka soo horjeedaa
war America inay garay noqoto cid ka soo horjeedo ma laha marka fiiri Soomaaliya laga dhigayo Soomaali xoog leh Soomaaliya weyn Soomaali xoog leh anaga waxaan u naqaanaa Soomaali sharciga taliyo dastuurku sareeyo garsoorka madax banaan yahay laanta fulinta iyo tan sharci dejinta ay kala madax banaan yihiin saxaafadu ay xor tahay dadku ra'yigooda ay cabira karaan afkaarta lagu tartamo suuqa aad soo dhigato fikirkaaga ilaahay muxuu tacaalo ila kalimatin sawa أنا هذا اللي سميه تاسع ربنا عنه نظام الديمقراطية مركز اللي هو عبوريو وحدوش على ساريا إنها تهي قف ودنيا جديدا مجلس ده هذا الناس توامع قالوا قرية واحد وحوايه شرقولك نظام كاللي هذا تفسير كشرقولك أفكار عربي وحلوية بدنا عربي أخرسته نظرية المؤامرة اللي هذا conspiracy theory أي عليها إنجليزي maanta dhan waxa laga sheekeynayaa hagardaamo nagu soo socota oo qatar ah oo ilaa iyo Mareykan ka soo bilaabata ilaa iyo Ethiopia daba haysata oo Soomaaliya ku wajahan in loo tashaday in la shirqoolayo wax allaale wixii dhacaaba hebela ka dambeeya dawlad hebela ka dambeeysa kooxdaas ka dambeeysa ajnabiga ka dambeeya waxaas maanta dhan tafsiirkaas shirqoolka ah yaa la rabaa dadkii in looga mashquuliyo inay isku sameeyaan waxa la yiraahdo self criticism inay ayagu is dhaliilaan ay dhahan war maxaa naga qaldan waxa la yiri Brazil iyo farqiga u dhaxeeya Japan waxay yihiin labadaba waa jabeen Brazil markay jabtay waxay tiriyaa la yiri yaa annaga nashar qoolay ilaa hadda meesha ay fadhisayaan nashar qoolay ku jirtaa laakiin Japanka waxay dhahanaa la yiri xageen dhibaatada ka jirta xageen annaga la'anahay isweydiiyeen qofka labadaas loo isweydiinaa bini'aadanka marna waxa isweydiinaysaa yaa ani shirqoolayo Soomaaliya inay saan ahaatay yaa ka dambeeya isweydiinaysaa markaas lagu leeyahay dawlad hebel inta waa qola habeenkii waxa la qaataa inta soo macdana xagga waxa laga baxa shirqoolkaas nadariyada mu'aamarada laga shaqeeyaa laakiin ummadaha kale waxay isweydiiyaan xageen annaga dhibaatada ka jirta وانا قران كميد او شيغي اولما اصابتكم الهي محير مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا حقين نوغا تمد او markii u xul jibay saxaabada moogtahay qul huwa min indi anfusikum alayhi problemku waa idin kala bax meel kale waxay kaga yihiin badari adkaadeen uxuda laga adkaaday idinka isfiiriya la yiri eedda meel kale hasaarinin marka nidaamkaasna waa nidaamka la rabo in wax lagu shirqoolo oo dadka looga lumiyo itijaaha federaalka si kasto loo yiraahdo waa arin maaragtay Soomaaliya lagu burburinayo waa nidaam qabiili ku dhisan waa nidaam lagu kala hadda waxaan aragnay in lagu caaramaalayo oo dadkii bulshooyinkii maanta garowe jaamacadan kama dhisnaadeen dawladdan uma dhisnaateen wasaaradaha ma dhisnaadeen jidadkan lama dhiseen aragteen waxaan dhan ma sameysmeen waxaan rajaynaynaa maamulada kale oo curdunka ah oo federaalka ku cusubna inay ku daysadaan ayagana oo dadku ay noqdaan nidaamkaas nidaam lagu caanamaalo oo noqdo dadkii indhahooda ku arkeen laakiin ma rabno inuu regionalism oo noqdo oo gobolaysi ama saas oo ekaado nidaamka marka balance garaynaya asaga oo inuu gobolaysi ku ekaado alleen dadkii moogta haday Puntland joogan Puntland un bay arimeeda ku ogyihiin yaa talaabsiinay xisbiga talaabsiinay nidaamka xisbiyada waxaa la rabaa xisbiyad muuna qaran national character inay noqdaan oo qof reer Puntland mid Jubbaland mid Galmuduga mid maaragtay ku jiraan Hirshabelle kan koonfur galbeed xisbiyada markay isku gudbinaya deegaanada waxa isku gudbinaya nidaamka xisbiyada iyo isku gudbinaya xisbiyada waxay noqonayaan wixii isku gudbinayay oo muunada qaran abuurahay oo xataa hadii regionalismka xoog samaago waxa balance garaynaya waa nidaamka xisbiga ma aha awoodooda dhaxal ugu aruuriyo gacanteeda ma taas ma qalad waa taas waxa balance garaynaya hanaanka xisbiyada oo lagu wada jiro oo loo dhan yahay oo la yiraahdo inclusive politics kaasa wuxuu sameeynaya midka abuuraya inuu san federalismka gobolaysi noqonin oo national noqdo xisbiyada ayaa sameey kara taasaan marka rabnaa in hanaanka xisbiyada midka la xoojinayo oo noqdo waxaan rabnaa marka
labada sano maxaa harsan wixii la rabay in la qabto xaggaan iska dhigaynaa waxa la rabay in la qabto maxaa kamid ah waxaa kamid ah ciidan qaran Soomaaliyeed in la dhiso shirkii London oo ka soo bilowday waa ogtihiin markii la qabtay heshiiskii amniga lagu heshiiyay Brussels la tagay haddana heshiiskii amniga haddana lagu heshiiyay mar kale oo marxaladda kala guurka amniga ah amisom in dalka laga saaro 2020 ciidan Soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo professional ah in la dhiso oo wixii la iska rabay ma la sameeyay lama sameeynin awooda ma qiimeynayno qof walba oo ogtahay waxa kale oo la iska rabay dastuurkii la dhameystiro dastuurka qabyada ah oo dhowr iyo 10 sano qabyada ah in la dhameystiro la rabay oo awoodaha iyo sida loo qaybsanayo khayraadka iyo sida loo maaragtay structure-ka hanaanka dhismaha dawliga ah soo noqonayo in laga dooda la rabay oo dastuurka la furfuro oo dadku ay ka doodaan oo bulshada loo soo bandhigo oo la dhameystiro la rabay maxaa la rabo kale ugu muhiimsan oo awooda raba in xoog saaro doorasho qof iyo cod in la qabto doorasho cod cad maxay marka ahamiyad u leedahay labada sano marka waxaan rabnaa haddii la isugu yimaado Garowe ama haddii la joogo bisha Mars ama haddii federaal la joogo ama haddii maamul goboleed la joogo ama haddii hogaamiyaal xisbi la yahay dhammaanteen waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno sidii loo qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah idinka naftiina 66 waa ku daasheen odayaashii sidii loo dabaajinayo nafta ka baxday sidii kursigii maaragtay 20 wiilo ilma adeeraha hadda meeshii gabdhaha waa loo diiday Puntland waa la socdaa hantiina waa ogtiina 20 wiilo ilma adeeraha kursigii isku dilaysa oo waxa lagu kala sooci karaana aysan jirin because nin walba jufada ka dhashay criteria maxaa waaye waa inaad jufada tahay marka suldaankii isinkii ugaaskii boqorkii waxa rabta dheh soo u kala saara wiilashan soo u kala xigsada ma yaqaan soo ku kala saara ma yaqaan wax criteria lagu kala bixiyaa malaha idinka naftiina waa ku dhibtooteen 4.5 waa lagu dhibtooday 275 waa lagu dhibtooday waxaan u baahanahay nidaamka furan ee xisbiyada ah haddaan loo gudbinin natiijada waxay noqon kartaaba inaan gadaal in loo noqdo Puntland iyo gobolada iyo federaalkaba waa in hanaanka qabiilka laga gudbaa kaas waa lagu soo caano maalay wax hadii lagu soo caano maal in la ag jooga ma waa in hore looga socdo hadii kale asaga wuxuu keenayaa backlash asan dhibaato keenay intuu soo dhibaato loo keenin kaniiniga moogtahay dhakhtarka wuxuu qoraa doosiye go'aan uu qoraa lama rabo inuu ka batana waa dhibaato haddaad cuni weysana waa dhibaato marka doosiyegi waa dhaafay hadda baasha way nagu badatay marka waxaan rabnaa inaan arintaas aan xoog wada saarno oo de Puntland daatihiin hormooda u noqotaan federaalkii saad Soomaali ugu sheegayseen waa ka dhaadhiciseen waa in la qaateen kana idinka linka rabaa inaad ka dhaadhicisaan daadis waayana xarunta halkan uga furnay wada jir oo ugu horeysay hanaankii xisbiyada inaan nala qaadaan oo Soomaaliya nala geysaan oo dawladdiina markii shirka la qabto u sheegtaan oo ayada ay fuliso madaxweyne kasta oo ogaay Puntland waa ballan qaadi jiray laakiin hadda in la isku qabsadaan rabaaho farqaha la isku dhago leeyahay haddaan kaas la sameeynin meel kale ma jirto marka maxaan rabnaa labada sano dawladdeena federaalka waxaan ka rabnaa annagana aan diyaar u nahay inaan hortiina ka ballan qaadayna Soomaali inaan kala shaqeyno goboladana aan ku wada hadalnay madaxdooda dawlad goboleedyada in sidii doorasho loo qaban lahaa laga shaqeeyo bal waxa kale oo xagga noo dhiga doorashadii aan u baahannahay maanta ka bacdi marka waxaan rabnaa waxa laga hadlaayo madaxweyne maamul goboleed dawlad goboleed mid federaal mid prime minister xukuumadeed wasiir xisbiyo waxa laga hadlaayo sidii loo qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah arinta doorashadan looga heshiilahay dhowr qodob aan rabaa marka in la qabto madaxweyne xashaq waa ogtihiin madaxweynihii ka horreeyay madaxweynaha hadda jira 2015 bartankeedii markii la maray baarlamaanka hor yimid wuxuu yiri hadii leegu ogaay inaan doorasho qof iyo cod qabto lama qaban karo Soomaaliya aan tashan Soomaaliya muxuu yiri aan tashan markaas waxa la bilaabay processkii ka yimid ergooyinka la socotiin soo saas ma ha dawladdii 2 sano waa dhamaad asaga markuu 2 sano joogo saas keenay at least umadii u saraaxooday waa hor yimid wuxuu yiri lama qaban karo doorasho qof iyo cod ah war wixii kale aadayno aan ka wada hadalno waa tii madasha la sameeyay waqtigiin waa tii marna xamar
marna Kismaayo marna Baydhabo marna Garow lagu shiraaye ugu dambeyntiina ay ka timid natiijada aragtayna doorashada madaxweynaha cusub lagu soo doortay dawladdii hadal waa kala anahay doorashada ku saabsan waqtigiina waa gabaabsi waa socdaa waxay noogu maqan yihiin ma ogin dadkiina ma leh warbaashi qof iyo cod waa socon kartaa iyo ma socon kartana ma leh war waxaana taladan hal raadiyana ma leh maalin dhaxdaas hal mar madaxweynaha wuxuu yiri sharciga doorashada waa in isbuuc lagu ansixiyaa warkiis dib dama looma maqan sharciga doorashada meel ku dambeeyay ma naqaan walwalaana soo galay marka doorashadan ogaada ama Puntland ahaato ama federal ahaato ama galmudug ahaato ama koonfur galbeed meesha rabta ahaatee waa inta yartaaho political stability xasiloonida siyaasadeed la haysto waa kuraastan la isku badbadalaya iyo hanaankan yarka oo doorashada oo qabaliga oo ku soo caana maalna waa political stability iyo weyneed lama gaarin taas goorma la gaara dadku markay qof iyo cod u soo baxaan oo qofkay rabaan ay doortaan xasiloonida siyaasadeed oo dhab ah markaas la gaara baasha hadda waxa haysto elite ka haysto wali elite ka waxa la yiraahdaa quraanku wuxuu yaqaanaa mala ya ayuha mala u maqashin quraanka asoo ku soo celcelinaya mala la yiraahdaa oo madaxweynta haysta hadda xukunka ama isimada ama siyaasiyiinta ama xildhibaanada qoladaas haysata wiilka dhalinyarada ay gabadha dhalinyarada waxa la leeyahay wiil baa hadda ii sheekeeyay niman dhalinyarada dhowr iyo 10 oo qarno iiga soo safray oo cawada xafladana fadhiya rajaynaya waxay dhahdeen annaga niman dhalinyarahan ah waxaan leeyahay madaxweyntii ma tiidin go'aan ma lihidiin taladii waxba kuma lihidiin meelaan ka soo galna ma leh taladii dalka xisbiga waxaan u rabno waa saasay dheen nidaamka xisbiga kaalinteena yaan ka qaadan karnaa laakiin nidaamyadan kala socda waxba kama qaadan karnay dheen banaanka lagu celiyaa ayaga hablahaba dhalinyaradii hablaha banaanka lagu qoraa odayada iyo siyaasiyiinta waaweyn iyo waxa kala goosta kuraasta iyo wax saas ah marka waxaan rabnaa annaga arintaas in laga baxo dawladda memberkan waxaan uga baaqaynaa inaan kala shaqeynaan diyaar u nahay gobolada iyo dawlad goboleedaha diyaar u ah laakiin ajandihii doorashadan ka rabnaa ilaa iyo May ama June ugu dambeysna waa ka rabnaa haday May iyo June ajandaha doorashada keeni waayaan waxaan qirsanaynaa waxaan ogaanaynaa waxaan fahmaynaa inaan doorashada loo wadin inaan doorashada loo wadin dawladda federaalka June haysata waxaan ka rabnaa inay dhahaan hanaankii doorashada xisbiyada badan waa kan haddii kale in maadeerayaal Soomaaliyeed tol hadaan nahay talo ma hayne hanaankii doorashada laga wada hadlo sida madaxweynaha hore u yiri oo kale laakiin in la isku warqarsado ma yeeli karno doorashada waa in banaanka la soo dhigaa waxaan rabaa markii inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga Soomaaliya waxa la dhihi karaa xoogaga siyaasadeed ee isku haya saddexan u qaybi karnaa in waa inta dawladda rabta dawlad dhisidda rabta Soomaaliya dawlad inay soo noqoto rabta Soomaaliya madax banaan oo mida oo karti iyo dadnimo leh soo harto inay noqoto rabta intaas waa kala duwan yihiin dawlad goboleeday leeyihiin xisbiyay leeyihiin madaxda xukunka fadhisay leeyihiin kuwa hore u hay jiray leeyihiin kuwa hadda soo socday leeyihiin intaas oo dhan waxay rabaan sidii loo dhisi lahaa dawladnimada Soomaaliya aragtidooda waa kala duwan tahay walaw sha Allah ilaahay muxuu la jacala ummad dadka hal ka dhigina ilaahay hal laga ma dhigin soo midabkeena iyo muuqaalkeena u kala duwan aragtideena u kala duwan dadkaas waxay rabaan sidii dawlad Soomaaliyeed loo dhisi lahaa laakiin waa kala aragti duwan yihiin ani waxaan u aqaanaa xoogaga siyaasadeed ama stakeholders-ka raba inay dawladda ay dhisaan dawladnimada Soomaaliyeed maamul gobol siyaasiyiin kuwa xukun jooga kuwa hore u hayay intaas oo dhan qolana waxay diidan tahay dawladnimada Soomaaliya oo waa dawladiid nidaamkeena ka duwanay wataan waa kooxda la yiraahdo al-shabaab iyo wixii ka farcama Daesh iyo wixii xaq ka sii xiga nimankaas dawladnimada Soomaaliyeed ma rabaan haddaad warsato waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa khilaafo islaam ah imaaro islaam ah war imaarada islaamka seed u rabtaan daadana kuma sheegi karaan waxay ku leeyihiin Soomaaliya waa loo simeeyaa qofka waxa muhiim ah inuu muslim yahay jinsiyadu raba haysto Soomaaliya laga ma xigo war waa la kala xigaa adduunkan qolobo meel ay leedahay deegaan ay leedahay dawlad ay leedahay bal noo kaadiyo maya haddaad Pakistan ka timid haddaad America ka timid haddaad Mauritania ka timid
soomaaliya muslimta waa dalkaagii aaminsiin magaca soomaaliya afkooda soo maro waa dhageysan kartaan hal mar kelmadda soomaali iyo soomaaliya afkooda kama soo baxdo erayga islaamka iyo muslimka isticmaalaan nimankaasna nidaamka hadda noo dhisan in la dumiyay rabaan waa dadka dawladda ka soo horjeeda iyo nidaamka dawladnimada Soomaaliya qolada saddexaad idinka reer Garowe ma taqaanaan anaga naqaan marka aan muqdisho joogno meel xalan la yiraahdo degan yihiin international community la yiraahdo idinka ma garanaysaan waa u shaqeey jir hadda min saaxiibkii aan la hadlayo waxa iri dhagacaantii xirxirneeda soo marayo marmaran UN-ku shaqeey jiraan Garowe ma jiri dhagacaantaas lagu xareey jiray laakiin hadda nin iska socdo waxaan ahay xoro meesha rabo mar qolaas waa saddex maaloodan oo xamar jooga marka nima saaxiibaday ya anagoo meesha sadxiga iska fadhino dabaysha iyo iska leersanayna 25 bishii December ahayd waa Christmas day-gii ya waxa la riday firework burleerkan ciidaha la rido ya xalana laga riday markaas waxaas ma ah markaas la yiri awad inay 25 taas oo moogid waxa loo dabaaldegayaa Christmas-kii marka waxa igu soo dhacday nimanna halkaas ay degan yihiin oo fireworkoodii faamiladooda inta aadi waayeen meeshan ku shiteen baashi haddaad xoogaa sii socoto xamar inta uga baxdani nimankii kala jooga oo shabaabka ahayo dhahay annagana waxaan rabnaa khilaafada islaamka inaan joojino intaani kalena meel dhaxan isku bursanaynaa oo cariiri ah luuq dhaxe waruuxay ninka marka wasiiro ay la joogo wasiiro waxaan dhahay saaxiibada ma u sheegtay space-ka inaan isku nabad gelino yarka cariiriga meesha dhaxe aad wada shaqaysano oo isku dayno nimankaasna inaan iska bixino nimankaana iska celino aan ka heshiino ma yowdaay maya horta waa idinka in meel la saaraho yiri waa inaan iska ftan naqaan oo wasiir ah marka annaga waxaan rabnaa Soomaaliya waa saddexdaas xooga isaysta anigu marka inta kale Soomaalida ma saddex igu jiraan intaas marka waxa la rabaa in heshiis laga keeno dawladnimada ay ka heshiiyaan hanaanka ay ka heshiiyaan systemkii ka heshiiyaan waxa beesha la aadi lahayd ka heshiiyaan yaa la rabaa taasaan u baahana laakiin haddii ninkii xukunka ama talada yimaado uu ku fikiro qoladaas xalanada dib u dhig wada xaajoodkooda iyo qoladan u kaadiye bal intaan ka soo adkaa wada u isdhaho afarta sano ka dhamaanaysa soo waxba ka adkaanin soo u socdo uun hal cafiye ku soo dhamaanaysa meel ma tagaysid ha ma la iska adkaa karo nimanka Lubnaanta anagoo kaleeta marka halku dhig fiicanay ay sameystay waxa la yiraahdaa la ghaaliba wala maghlub din adag imid la adag yahay ma jiro shicaarkooda waayaba annaga wada jira daana maxaa waaye is ogol isla gudoon maalintii shacabka Soomaaliyeed inta dooda dareeraan ay codka u dareeraan ay ku siiyaan vote-kooda oo intaas oo milyan oo cod lagu tiriyo la yiraahdo hebel ku guuleystay mandate-kii dadka wixii ka horeeyay inta ugaas iyo oday dhaqan ku soo xulaayay baarlamaan 300 oo ku dooranayo waxa tahay legitimacy sharciyo bahaysatid talada waa lagu leeyahay dhaxda iska dhigay marka soo daasho dawladii soo manayadna saas ahaayeen markay soo daalaan qaarna waa iska tagayeen qaarna dhaxday dhigayeen markay soo daalaan maalin kasta markay iskool wiido ma ka bixi karno qof intuu soo daalo yiraahdo waa soo daalo wax laga bixi kara maaha dhaxda in la iska dhiga talada ku fiican tahay la wada wadaago waxaan bogaadinayaa Puntland inay isku keentay xoogagii siyaasadeed oo kala fikirka duwanaa kala aragtida duwanaa inay isku keentay waa bogaadinayaa waa horumar miisaankeeda siyaasadeed ku tusaya inay gobashii nabadda dhigtayna waa bogaadinayaa inay dhul nabad tahay oo iska maro meesha rabo biibito iyo cafeteria iyo dukaan iyo meelan tagin iyo baadiyaha intaba labada dhinac ee magaalada ma jiro anoona cabsi dareemayno runtii oo xara yaan marayay waxaasna waa horumar waxaas oo dhan ka sii muhiimsan iyadoo ciidan ajnabiga qof ajnabiga joogin oo amisom joogin oo Itoobiya joogin oo qolo kale joogin inay Soomaali madaxdeedii oo ay ammaankeena sugi karaan ku tusaysaa inaan kalsooni siino bas ay u baahan tahay inaan kalsooni siino ay u baahan tahay qodobka harsan oo doorashada ka harsan oo ka tagay waxa waaye waa wada hadalka federaalka iyo walaalahan Soomaaliland laba sano wax yareeya in la wada hadlay u baahan tahay wada hadalkaasna waa qasab inuu furmo oo wada hadalkaas dib loo furo waa laga maarmaan idinkana waxaan ka rabnaa reer Puntland daatihiin arintaas soo dhaweynteeda iyo arintaas isku keenkeeda iyo arintaas soo dumideeda
inaad ka shaqaysaan wanaagga dadka Soomaaliyeed waa inay wada hadlaan oo ay wanaag ku wada hadlaan in lees dhaliileeyo ama lees dhiileeyo ama lees colaadeeyo waxaas wax weyn ma tarayaan annaga waa ka soo daalnay mana u soconno waxaan ka ballan qaadaynaa dhinacaas inaan u soconin laakiin wada hadalka iyo walaaltinimada iyo in la isku yimaado arintaas waa arin muhiim ah talada dalka in dhaxda la dhigo waxaad ogtihiin dad badan laga yaabaa inaysan taariikhda aad u arag islaamka nabiga maalintuu geeriyay kaleey salaatu wasalaam saddex maalin ay saxaabadu ay ka doodayeen sida la isku xukumayo cid wax xukumaysa nabigana lama aasin aaskiisa dib loo dhigay muhaajiriin iyo ansaar isku qabsadeen waxa la yiri talada halka noo dhiga negotiation bilowday nimankii muhaajiriin waxay dhaheen annaga iskala talada nimankii ansaarna xagee tala ka leedin talada annaga noo timaadeeno in marti gelinayo meeshan joognay seed ku yeelanaysaan yay dhaheen dood minna waxay dhaheen amiir wa minkum alwazir hatta negotiation halkaas u gaaray ilaa markii dambe la isku raacay in taladii loo dhiibo sayidina Abu Bakar ogolaasho dadku ku yimid iskama imaanin asaga markuu geeriyo rabay leen geeridiisa waa yaqaanay wuxuu yiri inay dardaarma wuxuu u dardaarmay sayidina Umar inay talada ay u dhiibtaan waana ka ogolaadeen laakiin dadkii wuxuu yiri anigu waxaan leeyahay soo jeedinta laakiin ogolaashaha idinka iska leh way ka ogolaadeen sayidina Umar de waad garanaysaa masaajidda lagu dhex dilay fursad ma helin oo dadka oo dardaaran iyo wax uu gudbiyo gudiya la saaray wala tadawqafooda la dadka soo weydiiyo waxay rabaan waxa la kala doorinsiyo markaas Ali iyo Uthman dadkii Uthman ay doorteen Uthman markii asana waa la dilay wala socotaan sayidina Uthman soo kitaabkiisa akhrinaya la dilay dadkii markii dambe waxay calaamad saareen sayidina Ali waxa la yiraahdaa markii nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam hanaan muayyan ah iyo qaab muayyan ah saas yeela ma dhihin asoona kala dardaarmisay isku xukumayaan nabiga geeriyooday mana ahay inuu moogaa dadka u daayay marka waxa ugu muhiimsan waxa waay bini aadanka waa inay talada ka heshiyaan hadii talada laga heshiyo oo sida la isku maamulayo sida la isku hogaaminayo sida la isku maareynayo sida loo baratamayo sida xukunka iyo talada loo qaybsanayo hadii laga heshiyo xasiloonida iyo horumarka markaas uu imaanaya idinka marka hada reebutul hadaatihiin waxaad haysataan xasiloonidaas laakiin waxay rabtaa in shacabka laga qayb geliyo oo dadweynaha loo dajiyo midda aan rabno inaan kala shaqeyno nagala shaqeysaan oo hore aan u wadno waa nidaamkaas xisbiyada waxaan ku ballamaynaa inaan dib loo noqon inaan 66 lagu noqon inaan oday lagu noqon inaan 4.5 ka gudubno nidaamka xisbiyada inuu noqdo legacy-ga soo socda ee hoggaan iyo madax iyo Puntland iyo Soomaaliba aan ka wada shaqeyno dawladda waxaan rabnaa federaalka iyo madaxdeedana waxa aan ka sugayno wax kala ma hadda howlihii kale oo dhan waa iska dhaafnay waxaan rabnaa doorashadii sida loo qaban lahay iyo hanaanka ku dhici lahayd iyo sida doorashada tahay inay soo bandhigto idinkana waxaan ka rabnaa mas'uul kasta oo Soomaaliyeed oo maqlaaya arinta doorashada in laga wada hadlo waa maasantiin. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi